haddii aad doonayso wixii aad weydiisatay in aad ka hesho qofka aad weydiisatay, waxaad hadalka uga bilowdaa waalidkaagu wuxuu jeclaa, hooyadaa waxay jecleed, aabbaha wuxuu jeclaa. kadibna weydiiso waxa aad rabto. tusaale waxaad leedahay waalidkaagu wuxuu jeclaa inuu dadka caawiyo, isaga markaas wuxuu ku khasban yahay inuu ku caawiyo sababtoo ah dadku waxay jecel yihiin in ay sameeyaan waxyaabaha ay waalidkooda jeclaayeen. habka ugu fiican dadka dooda badan aad kaga guulaysan karta ayaa ah in aad su'aalo weydiiso. marka uu midda koowaad kaaga jawaabo, mid labaad weydii, mid labaad markuu kaaga jawaabo, mid saddexaad, mid afraad, mid shanaad, ilaa uu ka daalo. marka dambe isaga ayaa ku dhihi doona haye adiga fikirkaaga keen. haddii aad aragto qof cunto boobaya u fiirso, qofkaasi waa qof dabeecad ahaan qalafsan, waa qof aan dabeecad lahayn. inta badan dadka cuntada booba waxay ka siman yihiin dabeecad xumada. haddii aad rabto inaad ogaato dadka qalbigooda waxa ku jira, wax ka guuxaya, waxaad iska dhigtaa qof hilmaamsan wixii uu sheegi rabay. tusaale inaad afka taagto oo dhahdo niyo waxaan ku weydii rabay. markaad xoogaa aamusnaato, qofka ayaa ku dhihi doona waxaas ma i weydii rabti, waxaas miyaa rabti. haddii aad galayso interview ama aad meel shaqo ka doonanayso, noqo qofka koowaad ama qofka ugu dambeeya. sababtoo ah inta badan dadka interviewga qaada waxay xasuustaan qofka ugu horeeya iyo qofka ugu dambeeya. sidoo kale dadka interviewga qaada qofka ugu horeeya waxay siiyaan boondada ugu badan sababtoo ah waa qofka ugu horeeya. qofka ugu dambeeyana waxay siiyaan boondada u badan sababtoo ah dad badan oo ka xun ayaa laga yaabaa inay ka horeeyeen. haddii aad qof dayminaysa lacag, sawirka qaad adigoo lacagta dayminaya. laba faa'iido ayay kuu leedahay. marka koowaad waxaad xasuusanaysaa qofkii aad lacagta daymisay, marka labaadna lacagtaadii si sahla kuma inkiri karo. haddii gabadha aad ka qaadanaysa lambarka ay kuu sheegta uu shaki kaa galo, ama wiilka lambarka aad ka qaadanaysa lambarka uu kuu sheega uu shaki kaa galo, kaliya lambarka uu ku siiyey lambar qaldan ka dhig. tusaale wuxuu ku yidhi qofka aad lambarka ka qaadanayso 123456, marka waxaad dhahdaa 123465. haddii uu ku dhaho 65 ma ahane 56 waay, lambarkaasi wuu saxan yahay. haddii uu hoobseedka kugu fasaxana, lambarkaasi waa qalad. haddii qof fariin intaad u dirto uu kugu soo jawaabi waayo, ha u qorin marka labaad oo aad fariinta u qorayso maxaad iigu soo jawaabi weyse. u qor magaciisa oo saddexan, kadibna reply u dheh fariintii hore. xaqiiq waxaa ah inuu qofkaas si dhaqso leh kugu soo jawaabi doono. dadku inta badan aad ayay u daneeyaan una jecel yihiin in loogu yeero magacooga oo saddexan. haddii darawalka baska aad saaran tahay uu shito sigaar, ha dhihin sigaarka dami, sababtoo ah haddii uu garasho leeyahay marka horeba ma shiteen. taas waxaa kaaga fudud in aad baska kaga degto meesha uu sigaarka ku shitay. dadku inta badan waxaa la yidhaahdaa waa indha ku garaad leh, balse dadku indha ku garaadle keliya ma ahaan ee xitaa waa dhaga ku garaad leh. sababtoo adiga oo shaqo ku jira mashquulsan, haddii qof taleefanka kaa soo waco aad ka qabato aad ku dhahdo wuxuu ku dhihi doonaa hurdo miyaad ku jirtay, ma hurdaysay, hurdo miyaan kaa kiciyey. balse adiga oo hurdo ka soo kacay, haddii aad taleefanka ka qabato aad dhahdo asalaamu calaykum iyo waran see tahay, wuxuu ku dhihi doonaa mashquul miyaad tahay, shaqo miyaad ku jirtaa. marka dadku indha ku garaadle keliya ma ahaan ee xitaa waa dhaga ku garaadle. waxaan rajaynayaa inaad ka mid tahay dadka xiiseeya ama aadka u jecel cilmi nafsiga. muuqaalkani like saar si uu gaaro dad fara badan, sababto markaad like saarto dad badan baa arkaya, dad badan baana ka faa'iidaysanaya. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, haddii aad horay uga mid ahay saaxiibadanana gambaleelka furo si uu muuqaal kasta oo aan soo gelino kugu soo dhaco. muuqaal kasta waxaan kusoo bandhignaa dadka muuqaalkii ka horeeyey saamaynta ku lahaa. waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo muuqaalkii ka horeeyey dadkii commentiga ka dhiibtay, dadka gaarsiiyey dadka walaalaha kale iyo dadka ka faa'iidaystay intaba. juweereeciisa ayaa ugu horeysa dadka muuqaalkii ugu horeeyey ama muuqaalkii ka horeeyey commentiga ka dhiibtay, laagtana saaray. cabdirasaaq axmed, nasre maxamed, ifraax abshir, cabdulaahi axmed, bilan guuleyste, aamine axmed, dable, xasan cabdulaahi, xafsa bariise,
إجابة الواد، عاشق علي، نعيمة محمد، لبان خليف، ريان شيخ يوسف، علي يوسف، عبد الله بريق، حفصة محمد iyo iska mari qof la baxay. aad waad mahadsantihiin saaxiibadaas. muuqaalka horeeyay like ta saare, commentigana ka dhiibta si aad uga mid noqoto saaxiibada muuqaalka xiga aan ku xusi doono magacyadooda. muuqaalkan like saar, commentina noo reeb. waa walaalkiin saaxiibkiin waahayn oo idin leh insha Allah cilmu nafsiga waan soo badi doonaa.